jaamacadda adnaadan ayaa habeennimadkii xalay tole munaasabad u qabatay dufcaddii saddexaad ee ka qalin jebisa kuliyadda caafimaadka ama dhakhtarnimada oo wax soo baranayay muddo gaadhaysa 7 sano. ardaydan ayaa tiradoodu waxay ahayd 14 qof. munaasabadan oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga UCID, wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland, Dr. Adnaadan Ismaaciil oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda, dhakhaatiir ajaaniba, dhakhaatiir kala duwan oo reer Somaliland, abwaano, waalidiin iyo mas'uuliyiin kale. ugu horeyntii halkaasi waxaa ka hadlay macallimiintii wax soo barayay iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda, waxaana yiraahdeen caawa waxaynu u dabaaldegaynaa 14 xul ah oo 14kii laga soo xulay ardayda tirada badan leh. waxaan leeyahay taa ogaadayna kartidii iyo awooddii aad intaas oo dhan kaga soo gudubteen inaad leedihiin oo hadhow toorana wax way aad guusheynta hadhayna aad ku sii wadi doontaan. mihnada caafimaadku runtii waa mihnad aad u muhiim ah oo bini'aadamku u baahan yahay. waqtigaa dheer waxaa loo soo jirrabayay imtixaankaa looga soo qaadayay in hadhow toore naf bini'aadan lagu aamino. shalay arday bay ahaayeen, maantana waa dhakhaatiir. haddana anigu xanuunsado nafteyda aan ku aaminayo waan u tegayo. dhakhtarnimada looma galo mushaharkeeda badan iyo looma galo maxay tahay cadaatido leeyahay waa dhakhtarad ama waa dhakhtar hal lagu yiraahdo. waxa loo galaa qof jilicsan oo bini aadam Ilaahay karaamay oo qiimo leh oo qiimihiisa hoos u dhacay xanuunkaas si aad uga saarneed halkiisa ugu celi. waa intaa weeye waxay idin qiimeynaysaa bulshada. imtixaan baa la idinka qaaday, examination test, bulshada ay idin qiimeynaysaa. ciyaar buu qaadanay, absankaa iska ilaalinaysaa. imika waa arkayseen in qaar idinka midii ay dib u dhaceen. patientkaaga dib uga dhicin. patientkaaga lacag iyo dhaqaale ha ku qaadicin. patientkaaga ixtiraam u dhima isaga, ilaali isaga, u soo jeed. ilaahay baad agtiisa wax wanaagsan kaga dooni doontaa. ilaahay baad agtiisa ka heli doontaa. marka annagu haddaanu nahay jaamacadda adna aadan waxaa noo sharafa in aynu magaca ilaalisaan adna aadan, magaca dalka ilaalisaan oo magaciina ilaalisaan baa idinka doonaya. waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaanu halkan maanta xafladan aanu ku sagootiyeyno 15 arday oo tababar dheer soo maray oonu soo barbaarinay 7 sannadood soo maray imtixaamadii kuwan anigu ka qaadi jiray, kuwa xukuumaddu ka qaado, kuwa macallimiintanu dabadda uga yeedhno ay nooga yimaadeen nala eega ay ka qaadaan. waxaa maanta la isugu markhaati furay mudane wasiir inay intaas oo Somalilanders ah oo wiilal iyo gabdhaaba ay ciidankaaga ku soo biireen maanta. waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hormoodii diinkii, associate iyo diinskii hore labaan arkaya hadda jooga Cabdiraxmaan iyo Mukhtaar way joogaan. waxaan u mahadnaqayaa macallimiintii soo tababartay, soo barbaarisay, gacan ka soo haysay. halkan qaar kale aan ku arkaa. dhammaan waxaan idinku mahadnaqayaa waajibkaa weyn ee xilkaa weyn aad ka soo baxdeen. intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ardayda ka qalin jebinaysay jaamacadda oo ku hadlayay afka ardayda iyo sidoo kale waalidiin. runtii waxaan halkan ka markhaati kacayaa in ay ka jirto kuliyadda qaybta caafimaadka cadaalad, ardaydu u wada siman yihiin. cid kasta ama dhiinka walaalaha ama dhiinka walaalaha lahaan runtii waxaa taalla kuliyadda cadaaladuna bini'aadamka waxaa ugu fiican ay ku qancaan. markii hore waxaad lahaydeen magacyo lahaydeen Cali, Faarax, Geedi, magacyo lahaydeen. laakiin maanta waxaad tihiin dhakhaatiir baad tihiin, dhakhaatiirta Somaliland baad tihiin, dadka oo dhan baad u siman tihiin. waxaa laydinka baahan yahay dadaalkaa faraha badan ee waalidku soo geliyey inaad halkii kasii wadaan oo jaamacaddii adne ee aad ka baxdeenna aad magac u soo jiidaan oo aydaan ceebaynin. dhakhaatiir caalami oo dalka dibaddiisa ka yimid kana soo qayb galay munaasabadani ayaa waxay bogaadiyeen
ardayda iyagoo sidoo kale u hambaliyeeyay Marwe Aadan Ismaaciil kaalintay ku jirto bulshada reer Somaliland iyo sidoo kale ka caafimaad ahaan iyo waxbarasho ahaanba. So I'd like to just congratulate you for getting to this stage and wish you all the best for the future on behalf of the external examiners. And would love to thank Edna for her hospitality and helping us not only proctor the exams but teach ourselves so that the sister countries can have further collaboration on self-sufficiency, especially on education. And I'd love to say to all the families, congratulations. Intaasi kadib waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiintii iyo dhakhaatiirtii ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaan leeyahay marka anigu idin wadici maynee waxaan idin leenahay welcome to the medical community ama bahda caafimaadka ku soo dhawaada. dhakhtarka wanaagsani waa dhakhtarka deeqsiga ah. muxuu deeqsi ku yahay? wuxuu deeqsi ku yahay inuu bukaankaa u yimi ee aan awoodaynin lacagtii iyo kharashkii lagu daweyn lahaa, hooyadaa dhibaataysan, ilmahaa yaree agoonka ah, garta in uu cilmigii iyo aqoontii uu soo baranayay inaanu u soo baran inuu ku shaqaystiyo inuu lacag ku helee inuu u soo bartay inuu kan ku badbaadiyo. maalinta dhibaxaday inan baa nagu jirtay intayadii oo dhan maantana de waa half and half. hablaana waxaan leeyahay iska daa Somaliland oo dabaddana raggii waa kaga adkaateen halkaa ka wada. midna ku darso markii jaamacadda aad joogteen khaladaadka aad gashaan waxay niga saxayay dhakhaatiirtii markaa macallimiinteennii u ahaa iyo supervisoradiinni khalad kastood gashaan waa la saxay laakiin imika ku darso khaladka aad gashaani naf buu galaafanaya qof buu dilaya. dhakhaatiirta qalin jabisay shaqay yidhaahdeen annagu maanta waxaan shaqo gelinaynaa shaafici ahaan waxaanu shaqo gelinaynaa ardayga honarka ah shaafici ayaa shaqo gelinaya. Injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga oo ciidiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Xasan Gaafadhi ayaa gabagabada halkaasi ka hadlay waxaana yiraahdeen adina maanta ilaahay khayr siiye wixii ay qaban kari waayeen sameyn kari waayeen baa mushariga lacagta badan leh ayay samaysay marka iyaduna waa qofka aad maanta wax dawladda qaban lahayd bay qabatay aad iyo aad baan adna waxa weeye inay subxaanahu wa tacaala ilaahay abaal ka siin doono innaguna abaal weyn bay ku leedahay inaan xasuusanaa weeye. jaamacadda Adna University waxay ka mid tahay jaamacadaha ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay aqoonsan tahay si buuxdana ay u taageerto dadka ka soo baxa. waa dadaalaynaa waxaanu ku talagelaynaa annagu in aanu weelayno oo aanu meelayno dhakhaatiirta in allaale intii la meelayn karo. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydaasi dhammaystay 7 sano ee dhakhtarnimada halka kuwii kaalmaha sare galena lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan. Guurad Cunaabi, MMTV. abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.